afayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada amnigu ay ku guuleysteen ka hortagga qaraxyo magaalada Muqdisho loo sii waday. Maxamed Xasan Qays ayaa mar kale soo diray. afayeenka wasaaradda amniga dowladda Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xildhibaan oo maanta shir jiraayad warbaahinta u qabtay magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda amniga ee dalka iyo qorshayaasha amniga lagu sugayo halka ay marayaan. afayeen Cabdicasiis Xildhibaan ayaa sheegay in amniga caasimadda ay wax badan ka qabteen ciidamada amniga isagoo sheegay in lagu guuleystay laga hortago qaraxyo magaalada Muqdisho loo soo waday. sidoo kale waxa uu shirkiisa jiraayad ku soo hadal qaaday weerarada dhanka cirka ah ee dowladda Soomaaliya iyo wadamada taageera ee la bartilmaameedsadeen meelaha ay kugu sugan yihiin dhaqdhaqaaqa al-shabaab. waxa uu intaa ku diray hadalkiisa in wada hadal la gali doono dad uu sheegay in ay qas ku wadaan hanaanka dowladnimo ee dalka iyo ciidamada gurmadka ugu yimid Soomaaliya weerar dhinaca cirka ah iyo dhulka ah oo lagu hayo kooxaha iyo maleeshiyada al-shabaab waxaadna ogtihiin in qaraxyo fara badan oo ku soo socday magaalada Muqdisho iyo gobolka ka tirsan Soomaaliya looga hortagay inta aysan soo gaarin magaalada Muqdisho annaga oo gacan ka helayna isbahaysiga iyo ciidamada gurmadka ugu yimid Soomaaliya marka cid kasta oo xadgudub u geysanaysa waxna yeelaysa qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waajibka saaran dawladdu waxay tahay inay la xisaabtanto. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya wuxuu warbaahinta hore uga sheegay in dawladdiisu ay diyaar u tahay isla xisaabtan dhab ah shacbiguna inay xaq u leeyihiin inay dawladda la xisaabtamaan dawladduna ay xaq u leedahay inay la xisaabtanto shacbiga la xisaabtanto. Soomaaliya waxaan leenahay kooxaha shidada ka horinaya dalkeena Soomaaliya haddii ay tabasho jirto waxay dawladdu diyaar u tahay inay la hadasho cid kasta oo wax tirsanaysa waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo garata in aysan wax guul ah ku gaari doonin daadinta dhiigga shacbiga Soomaaliyeed. iyadoo wasaaradda amniga ay sheegtay in wax badan ay ka qabteen amniga caasimadda ciidamada ammaanka ayaa haddana waxaa jira falal amniga lidiga ku ah oo marmarka qaar ka dhaca magaalada taasoo ay ka mid yihiin dilal iyo qaraxyo qorsheysan. Maxamed Xasan Qays, RTN TV, Muqdisho.